waxaa maanta magaalada Laascaanood la soo gaarsiiyay roog casri ah kaasoo la dhigi doono garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood una suurto geliyay keenistiisa barasaabka gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo dhalinta sportska ee gobolka Sool u ballan qaaday inuu u dhigi doono roog casri ah waxaa munaasabadii lagu wareejinayay roogan iyo qalabkii la socday ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Sool xogayaha dawladda hoose iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday sportska gobolka Sool marka ugu horeysa waxaan u hambaleynayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii fikirkan la keenay in garoonka la dhigo waxay ahayd riyo dhalinyarada Laascaanood in badan ay rumaysan weyday maanta se waa xaqiiqo waxa loo wada jeedaa in garoonkii gobolka ee Cabdi Bile Stadium uu noqday mid la keenay kaarbadkii loogu talagalay in lagu ciyaaro arrintan runtii waa qorshooyinkii barasaabka iyo xukuumaddu ay u dajiyeen gobolka markii uu barasaab Mustafa yimi waxyaabihii ugu horeysay ka hadlay kamid ahayd ballanqaadadii uu sheegay dhalinyarada wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ma ka cusub diraya waxaan kaloo halkan cusub diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay si dadku suuq galaan bariga galbeed waxa sabab noqonaysa 14 gobol ee Soomaaliland ka kooban yahay in koobka ciyaaraha gobolada Soomaaliland lagu soo horeeyo in la aad baan u faraxsanahay maadaama maanta uu soo gaaray garoonka Cabdi Bile Cabdi ee degmada Laascaanood roogii la dhigi lahaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan baleynayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee gurdoonka Axmed Maxamed Silaaya saad la socotaan garoonkan waxaa ku deeqay markiisii hore oo dhisay madaxweynaha dalka maantana waxaa leeloo keenay roogii oo in la casriyeeyo casr laga dhigo waxaan rajaynayaa oo Ilaahay ka rajaynayaa insha Allah tacaala in riyada saddexaad ay noo rumoodo oo aynaanu marti gelino ciyaaraha gobolada ee sanadkan soo socda hadii la yiraahdo halkan kula wareegay waxaan soo gaaray halkan aan kula wareegnay roogii garoonka Cabdi Bile Cabdi oo muddo fara badan aan sugaynay rooga waxa naga caawiyay oo ka hawlgalay waan uga mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo markuu yimi noo ballan qaaday kana dhabeeyay waxaan u sheegayaa dadweynaha gobolka Sool bahda sportiga in roogii loo keenay aanu laga mahad celinayno waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka dib dambana aysan ugu ciyaarayn dhagax garoon cagaar oo qurux badan ay ku ciyaari doonaan barasaabka gobolka Sool ayaa isagu sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay mar walba u soo jeedo gobolka Sool wuxuuna u mahad celiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo sheegay inay ka aqbashay codsigii uu gudbiyay isagoona sheegay in mashaariic kale laga fulin doono guud ahaan gobolka Sool markaan imid gobolkan la soo magacaabay maalmihii ugu horeysay waxaan kulanay Fuad iyo teamkiisii oo abaabulay wareeg oo carqalad ka haysato arintii in ay socoto koobkaasi wareegga socdo dabeedna waxaan ballan qaaday hadii ay yuhun la yimaadaan dhalinyarada sports oo ay la yimaadaan inay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan maarta ciyaaraan oo ay iskaga baxaan waxyaabahan ma taqaanaa siyaasadda iyo tahriibka iyo rabshada inaan anigu ku dadaal doono inaan keeno garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bile Stadium artificial rock maanta inala jooga runtii waxba igu ma qaadan Ilaahay wiisaalay waxaan aad uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaay oo fikirka markii aan sheegay aad u soo dhaweeyay oo diyaar u ah mar walba u heelan in gobolka Sool wax loo qabto sidaad arkaysaanba dabeedna markii ila aqbalay ila qaatay waxaan sidoo kale madaxweynaha ka soo runtii u mahad celinayaa oo doonaya maanta inaan sheego la'aanteed inaan alaabtan inoo timaadeen wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan oo runtii markii ay maartay gobolkan ay ballan qaaday in wax alle wixii horumar ah ee gobolka Sool ku saabsan ay wax igala qabanayso iyadoo og in gobolkan uu ka haray goboladii kale waxay ballan qaaday mashruuc kasta oo qiimo leh oo macquul ah oo maartay feasibility studies soo sameeyno oo ku qancinaa inay fulinayso Samiir Saciid Bile telefishinka madaxa bannaan ee bulsho Laascaanood